mas-uuliyiinta wargeyska madaxa bannaan ee Foore ayaa maanta shaaciyay inay rafcaan ka qaateen xukunkii halka sana ahaa ee maxkamadda gobolka Maroodijeex ku riday Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab maareeyaha wargeyska Foore oo maanta warfidiyeenka la hadlayay ayaa sheegay inaanay weli ka quusan cadaaladii garsoorka taa beddelkeeda ay rajo ka sugayaan maxkamadda darajada labaad maareeyaha Cabdirashiid waxa uu ku tilmaamay xukunka maxkamadda gobolka Maroodijeex mid baadil oo aan loo meeldayin waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaan ummadda iyo shacabka Soomaaliland u sheegaynaa in aanan wali ka quusan cadaaladii garsoorka ee aanu mar kale calafkayaga ka qaadi doono maxkamadda darajada labaad ee rafcaanka waxaanu si gaar ah uga rafcaan qaadanay xukunkii xayiraadda ahaa ee wargeyska albaabada loogu laabay kaasi oo aanu aragno inaan loo marin sifo sharciya nidaam sharciya kaasi oo aan loo marin oo ku yimid colaad guun ah ciilqab argoosi fog oo meel fog ku qotoma marna maanu filaynin in wargeyska Foore lagu xayiro oo albaabada loogu laabo warbixin uu ka qoray malaayiinka lacag ah ee lagu dhisay madaxtooyo cusub in laga horeysiyo oo ay ka mudan tahay in waxbarashadu ay noognahay halka maraysan waxbarashada dawladda caafimaadka iyo in Hargeysa biyo ku yeesho marna maana filaynin arrintaas lagu maxkamadeeyo waxaan mar labaad ka codsanaynaa in garsoorka madax bannaanida loo daayo oo aan la farigelin oo aan mar labaad xukunkayga la siyaasadayn oo aan mar labaad dacwadeeda la siyaasadayn innamada ehelnimada reernimada ku sheegta ee dadka kale ka dhawaysta madaxweynaha ee suuqa kaga faanaya xukunkii Foore waanu ku yaraynay ama waanu la saayirnay ee naanaysaha iyo magacyada kala duwan loo bixiyay waxaanu leenahay innamadaasi arrintaasi waxay dhegxumo ku tahay oo ay foolxumo ku tahay hogaaminta dalka in warbaahin ama institution warbaahineed wargeys albaabada loogu laabo dariiq aan sharci ahayn oo sifo sharci aan loo samarin oo rule of law loo marin waa halka ugu dambaysa ee lagu tirtirayo dheelitirnaanta qaranka waa halka ugu dambaysa lagu tirtirayo hanaankii dimuqraadiga ahaa ee muddada dheer Soomaaliland adduunyada ay ka iibinaysa dhanka kale Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo kamid ah qareenada u doodayay wargeyska Foore ayaa ka dayriyay xukunka lagu riday wargeyska Foore waxaanu xukuumadda ugu baaqay inay xorriyadda hadalka ee dastuurka Soomaaliland damaanad qaaday la sii daayo waxaana kamid ah hadaladiisii ama hay'adaha kale warbaahinta la xidhayo sidoo kale loo xidhayo aanu ahayn Foore kan kaliya xidhan laakiin Soomaaliland marka guud ahaan maanta la eego waxa xidhan xorriyadda hadalka laftigeega xidhan horta waxaan codsanaa xorriyadda hadalka la sii daayo marka xorriyadda hadalka la sii daayo wargeyska Foore xorriyadiisa loo celiyo oo xayiraadda laga qaado waxaan aad ugu rajo weynahay diidilada iyo horumarka ballaaran ee garsoorka Soomaaliland sameeyay dhawaan ay ummadda dhan ugu mahadnaqaysay xukunkii Cabdiraxmaan Abees inay sidoo kale ay maxkamadda rafcaan gobolka Maroodijeex u heelin doonto wargeyska caanka ah ee Foore oo xayiraad la saaray muddo hal sano xayiraadda Foore waxay ka dhigan tahay inay mamnuuc tahay in la hadlo waxay ka dhigan tahay inay mamnuuc tahay inay warbaahintu wax qorto dadkuna si xor ah u fikiraan Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.